asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah. Soo dhawaada walaalayaa, ilaahni barakeeyo. Waxaa noo socda weli fasiraada riyooyinka, khaasatan qur-aanka oo lagu riyoodo fasiraadooda insha allah. Caawa waa qeybtii afaraad, 3 qeyb ayaan hore usoo sheekeynay. caawana waxaan ka sheekey doonaa insha allah qeybtii afaraad hadduu ilaahi yiraahdo. waxay ku bilaabanaysaa walaalayaa riyada u horeyso. qofkii ku riyoodo suuratun taqaabun, qofkii ku riyoodo waxay noqonaysaa qofkaas qof ilaahay subxaanahu watacaala uu sii sadaqaad badan, ama wuxuu helayaa sadaqaad badan. saasoo kale wuxuu noqonayaa qof u dhimriya dadka ducafada ah. sidaasoo kale qof ku toosan dariiqa xaqa ah oo ku toosan, iyo qoolka xaqa ah qof ku toosan ayuu noqonayaa. sidaasoo kale walaalayaal, qofkii ku riyoodo suuratu talaaq wuxuu noqonayaa qofkaas qof dood kala dhexeyso ama khilaaf asaga iyo xaaskiisa. sidaasoo kale qof nolosha dhabta ah ku jiro. saasoo kale qof hela arrintaas noloshaas dhabta hela ayuu noqonayaa. sidaasoo kale walaalayaal, qofkii ku riyoodo suuratu taxriim ku riyoodo wuxuu noqonayaa qofkaas walaalayaal suuratu taxriim ku riyoodo qof laga ilaaliyey waxyaalaha muxaramaadka ah. sidaasoo kale qof lagu risaaqay ama risaq ilaahay siiye meel uusan ka filanin. sidaasoo kale qof ka fogaada wixii aan loo ogolen ayuu noqonayaa. sidaasoo kale qof lagu dhibo hadalka asagoo maqan, qof lagu dhibo hadalka asagoo maqan ayuu noqonayaa. sidaasoo kale haddana lagu imtixaamo xaaskiisa haddana dhibto, qof xaaskiisa lagu imtixaamo inay dhibto. sidaasoo kale walaalayaa suuratulmulki qofkii ku riyoodo qofkaas wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu watacaala cadaabtiisa laga najeeyey, bishaaro iyo kheyr iyo baraka la siiyey, qadarkiisa iyo sharaftiisa kor loo qaaday, qof kheyr badan adduunye iyo aakhiraba ayuu noqonayaa. sidaasoo kale qofkii ku riyoodo walaalayaal suuratu nuun qofkii ku riyoodo qofkaas wuxuu noqonayaa qof uu badan yahay ixsaanka iyo kheyrka uu dadka u sameynayo qof kaste, haddana qof dheef badan oo haddana hadalkiisa. sidaasoo kale qof faseexo leh, haddana siiyo dadka masaakiinta wax ay hantaan, siiyo masaakiinta shay ay hantaan. sidaasoo kale walaalayaal, qofkii ku riyoodo suuratu alxaaq qofkii ku riyoodo wuxuu noqonayaa qof hela risaq iyo nicmad waafir ah oo badan. qofka riyadaas ku riyoodo wuxuu noqonayaa sidaasoo kale qof u gargaara xaqa u gargaaro. sidaasoo kale qof ka cabsado waxyaalaha dilka iyo go-itaanka ka cabsada ayuu noqonayaa ama garaaca. sidaasoo kale walaalayaal, qofkii ku riyoodo suuratulmacaarij qofkii ku riyoodo qofkaas wuxuu noqonayaa qof la yimaado ficilada kheyrka la yimaado, ficiladaasoo ilaahay subxaanahu watacaala raali gelinayo. sidaasoo kale ama qof naftiisa iyo nafafka kale xumaan ku tuhmo, haddana arrintaas ka toobad keeno oo kasoo noqdo ayuu noqonayaa. sidaasoo kale qof laga badbaadiyey waxyaalaha fasaca argagaxa, qof laga badbaadiyey ayuu noqonayaa. sidaasoo kale walaalayaal, qofkii ku riyoodo suuratu nuux qofkii ku riyoodo wuxuu noqonayaa qofkaas qof ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqdo oo ilaahay u toobad keeno, camal kheyraad la yimaado oo wanaagsan, wanaagga faro oo macruufka dadka faro, cadowgiisa dhibo. sidaasoo kale qof haddii jirto fariin maqan, qof ehelkiisa la asiibo ayuu noqonayaa. sidaasoo kale walaalayaa, qofkii ku riyoodo suuratu jin qofkii ku riyoodo qofkaas wuxuu noqonayaa qof laga badbaadiyey sharta jinniga, haddana lagu ilhaamiyo oo la fahamsiiyo qaabkii uga badbaadi lahay. sidaasoo kale haddana wuxuu noqonayaa suuratulmuzammil qofkii ku riyoodo walaalayaal qof maxabad, qof jecel salaatuleilka, qof jecel salaatuleilka ayuu noqonayaa, nooleeyo cibaadaadka qof nooleeyo.
sidaasoo kale qof caadaysto inuu habeenkii istaago oo alla xuso ayuu noqonayaa bacdamaa uu hilmaamay arrintaas. qof habeenkii u istaago oo alla xuso ayuu noqonayaa. sidaasoo kale ha ku daawoobo arrinkaas. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda suuratulmudathir wuxuu noqonayaa qof sameeya camaasha wanaagsan, haddana ee noloshiisa ee tahay nolol wanaagsan oo fiican. sidaasoo kale waxay tilmaamaysaa walaalayaal arrinkaas dhibaatada nolosha, soo noqnoqoshada nolosha. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda suuratulqiyaam waxay tusaysaa qofkaas marka uu dhimanayo inuu waafaqo shahaadka. sidaasoo kale qof ka cabsado ilaahay subxaanahu watacaala cadaabtiisa. sidaasoo kale qof deeqsi ah, iskana ilaaliyo waxyaalaha ama dhaarta oo faajirnimada ah. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda suuratul insaan wuxuu noqonayaa qof ay dabeecadiisa wanaagsan tahay, suhdi badan, warac badan, haddana u iithaara naftiisa, haddana qof dheef leh oo wanaagsan ay addoommada ilaahay uu noqonayaa. haddana sidaasoo kale alla ka cabsada, allana uu ka najeeyo maalinta yowmalqiyaama cadaabtiisa, farxadna uu helo ayuu noqonayaa qofkii ku riyooda suuratul insaan. saasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda suuratulmursalaat wuxuu noqonayaa qofkaas qof nabadgelyo helo, waasic la siiyo, haddana wadada xaqa qaada ayuu noqonayaa. qofkii saasoo kale walaalayaal ku riyooda asagoo akrinaya suuratu naba, qofkaas wuxuu noqonayaa qof la yimaado ficil kheyr ah, ficil wanaagsan la yimaado, qadarkiisana kor loo qaado, haddana qof ka fikira noqdo makhluuqa ilaahay qudradiisa. saasoo kale allah ugu shukriyo nicmada uu siiyey, haddana cimri dheer ayaa la siinayaa. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyoodo suuratu naasicaad qofkaas wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keeno oo alla subxaanahu watacaala uu ka cabsado ciqaabtiisa, haddana sifo wanaagsan la yimaado oo qalbigiisa saafi ka dhigo, dembiga iyo waxyaalaha shakiga ka fogaado. ama waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa qof salaada dib dhiga waqtigeeda. sidaasoo kale ama ay soo dhowdahay waqtiga geeridiisa ayuu noqonayaa qofkii ku riyooda suuratu wanaasicaad. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda suuratul cabasa wuxuu noqonayaa qof soonkiisa uu badan yahay, qof ficil wanaagsan la yimaado, sidaasoo kale ula yimaado dadka ducafada iyo masaakiinta, kuwaasoo la dulmiyo ama kuwaasoo la ilhaanaysto, la xaqiro, ama waxaa laga yaabaa inuu wejiga kuduudo. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda asagoo akrinaya suuratu takwiir wuxuu noqonayaa qof safar dheer gala asagoo u safrayo dhinaca qoraxda kasoo baxdo. qofkaas wuxuu helayaa safarkaas dhexdiisa kheyr, waxaa laga najeynayaa xanuun, ama waxaa laga yaabaa in ay wanaagsanaato noloshiisa. sidaasoo kale qofkii ku riyooda walaalayaal suuratul infitaar qofkii ku riyooda wuxuu noqonayaa qof laga suuliyo ama laga ilaaliyo dhibka. sidaasoo kale qof u dhowaado qof suldaan ama qof madax ah, ama waxaa laga yaabaa inuu dayaco toobada, ee arrinkaas ha u degdego oo toobada ah. ama saasoo kale waxaa laga yaabaa inuu adduunyada dhaldhalaalkeeda uu raaco. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyooda suuratulmutafifiin qofkii ku riyooda qofkaas wuxuu noqonayaa qof alla subxaana watacaala ka cabsado, haddana oofiyo miisaanka iyo beega, haddana uu noqdo qof cadaalad ah, ilaaliyo ammaanada ama ammaanada ku simo ehelkeeda. ama waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa qof miisaanka nusqaamiya iyo beega.
sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyoodo suuratul inshiqaaq qofkii ku riyoodo wuxuu noqonayaa qofka riyadaas arko wuxuu noqonayaa qof loola yimaado kitaabka midig ama qof hoos u dhigayo naxwaha iyo asluubta ama aqriyo qaar ka aqriyo ama wuxuu noqonayaa qof adduunyada xariis ku ah haddana ku mashquulo dalbo magaca iyo sharafta dadka ka dalbo khalqiga ilaahay. sidaasoo kale qofkii walaalayaal ku riyoodo suuratul buruuj ku riyoodo qofkaas wuxuu noqonayaa qof laga dulqaado walwalka sidaasoo kale laga zuuliyo murugta haddana qofkaas qof alla subxaana wa tacaala oo ku risaaqo maalinta yowm alqiyaama ajir badan ayuu noqonayaa ama markhaati uu gudanayo ayuu hilmaamayaa ama sidaasoo kale daacadnimada way ka hortagtaa xitaa haddii uu yahay boqor ama qof cilmi helo ayuu noqonayaa ama ilaa uu garto guryaha. sidaasoo kale qofkii ku riyoodo walaalayaa suuratu taariq qofkii ku riyoodo wuxuu noqonayaa qof helo wiil saalix ah oo wanaagsan ama wuxuu helayaa faraj ayuu ilaahay siinayaa iyo khayr faraj iyo khayr ayuu alla siinayaa bisabab wiilkaas wanaagsan ayaa lagu siinayaa ama waxaa lagu risaaqayaa wiilal badan laakiin caruurtaas waxay dhimanayaan ayagoo yar yar ah ayay dhimanayaan ama waxaa la yidhi wuxuu ka cabsanayaa tuugo asagoo tuugadaas ogala cabsanaya maalkiisa in ay dhib u geystaan. sidaasoo kale walaalayaal qofkii ku riyoodo suuratul aclaa ku riyoodo qofkaas wuxuu noqonayaa qof loo sahla amuurtiisa qof daa'imo tasbiixda ayuu noqonayaa qofka riyadaas ku riyooda ama wuxuu noqonayaa qof hilmaam badan ama wuxuu rajeynayaa in laga suuliyo macnaha hilmaamkaas. sidaa darteed walaalayaal towfiiq allahna waafajiyo caba qeybta afaraad oo tafsiirka riyooyinka qur-aanka halkaas bay noogu dhimaadeen horaan 3 qeybood uga soo sheekeynay caawana waa qeybtii afaraad insha allah hadduu ilaah yiraahdo waxaan kusoo qatimi doonaa qeybta 5aad tafaasiirta ee riyooyinka qur-aanka waxay u qeybsamaan 5 qeyb qeybta ugu dambeysana habeen dambe ayaan ila soo wadaagi doonaa hadduu alla raali ka noqdo. ilaahani barakee walaalayaal meel kasta adduunyada ka joogtaan kheyrka ka shaqeeya insha allah weli waan usoo jawaabi doonaa walaalihii komitiyada hadduu ilaah yiraahdo. ilaahani barakee meel kasta joogtaan kheyrka ka shaqeeya kheyrka ka faa'iideysta walaalaha kale hala gaarsiiyo insha allah laagtiyaa laga hilmaamin barnaamijka ha lagu tixnaado. ilaahani barakeeyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.